حسن جدو حوري قفكو أبجال لما وقتو ديجي إنه يسمع ساسوا information الوهاي ها gabadhu kulay iida si fiican faafaahid doonto markii si fiican barnaamij loo galno ka sheegi doona laakiin gabadhu waxay sheegtay dad yaqaanay horta xasan geedi magaca xasan geedi macnaha waa qof asigu magaciisa saxda maaha si ay sheegtay ولا يقانا waxaa jiray وأنا أقانا أبتسيق أقانا ها marka waxaa jiray tiri habeenada kamid ah qof wiil dhalinyaro oo is yaqaanay malaha dariskiisa micidiisu yaqaanay ah imaaday marka hadal aan la fahmin ku dhaxkooda magaciisa waa dadkii meesha joogan magaciisa ma yaqaanin hebel waa salaami waa gareey dhahday بس والسك جوجي نينك يعني habeenkii kale wuxuu ku soo caadin wax ma qabto soo sheego waxa ma caadi markuu caadi yahay qof ma taaba kar min dilo xaaladiisu qof caadi oo nool ciidamadu ka tasnaa jiray waagar askari waxa jiray muqsaga ha tabsaas la sheega ma qudasho mu isbaarooyin ku lahaa marna isfagaxo qasay qadar qaajaa oo shaqaysan jiray waagi dambana wuxuu ku biiray ciidankii oo Sheekh Shariif ku biiray ma fahamti xilligii Sheekh Shariif kadib uu soo baxay مريا على صحتها وكجري حلقي دينتي الله يعني لكن يودي متقانا دي ابقى دن وبابيوت رجع ابقى دن وبابي يو هورta qabiilkiisa marka asaga waxa la shaqaysan jiray mataaqaana da in sheego ninka la shaqaysan jiray waa yaabisiya ninka la baabiyay oo dimbiga lagu helay cadeymihii lagu helay qabshaxsada la jir mursado u ahaa waaba jooga ninkaase qabshaxsada daba talyaaniga raadinay talyaaniga qabteen diyaarada lagu qaato special flight lagu qaato xiran waaydo mursadaha Soomaaliya oo last year markii la doortay siyaasadku ku jiray ka itali waxay marka soo hadlay harakay noocaas oo yeera garanaya imaaday markuu salaamo ha gareeyo maash habeenkii iska joogay safar imaado ahaa habeenkii wixii u soo cabay qorigii u soo qaatay hebel hal isoo bixiyay waxa ma weydiin hadal ma dhihin ma taqaana ma dhihin xabad madaxa u dhuftal bash bash bartii ku tuuray ilaa had wala faham waay yani sababta ninka halkaas habeen imaado malaha saacado joogmiya ma qaata ma dhameystiran maalin marka ujeedku ninka wuxuu ahaa hadaan dhahna maanta ama yani dadka qaarkood waa iska satif xabeer raadiyaan nin abgala habargisa yala ujeedku saas ma ahayn qofku soo galo ama habargisa sheegtay wuxuu rabaa haduu horta qof habargisa gabadhiisa ay sheegtay ama maanta meel kale wuxuu geysto qof habargisa tusaale ahaan waxa soo yiri saas ama waxa soo sheegay magaalada meel wadankii kamid ah oo soo qabana ku joogo soo qabana leeyahay idinkaas sidaas yeesheen sayf u yeeli kartaan habeenkaas lama seexanayo دايرو ما بيكرا هوية اسمارة أطال ليبيا هذا لكن دوال الحين أصلي عمر كان هذا ماشي سفارة كي جوجا محمد داهركا وأكسر بحاجة لعق بدون لصق دون تنفع أنت لصق قرصت ماشي مقطع السودان دجالة كده مقطع ولا صوت دجالة لعقت ودن كوالد دادي والله بالله قيستي بوق وصيب بطي ما فهمت dadku waxay aad u sheegtaan laakiin daahiro consulka Soomaaliya safiirka Soomaaliya qariib u fadhiyo isaga xataa muqal Soomaaliya gabadha xataa mar dhibaato u geystay ay tahay sheekay doonta aniga inuu sheekaysto aad idriso sheegay waa daahiro wanti xabsiga markay ka soo baxday isbitaalka sawirka arkaysan markii kadib qisa kala gabadha qabsatay nin u shaqeynayo hay'adii UN kamid ahaa laftirkeedii oo marka aniga igu dhal doonta inaan soo baxo ayiri kaliga ta eel malid ana ku guursanaya wadankaagii lagu celimayo halkan macna Liibiyan noqday ay ka soo dhuumatay ka carartay ay yar oo kaalmo u fidiyay Tripoli u geey marka misraata magaalada ay joogtaa Tripoli tagtay Tripoli qab waxa la ka dhacday 2021 October I think in ahead dadkoo dhan la raafayay marka way ka carareen gurigii waxa la galay safaaradda Soomaaliya la galay safaaradda waxa ka dhici doonto qiso iyada in sheegta aan jeclaan lahaa oo dadna ay goobjoog u ahaayeen oo ninkii uu yiri ayadoo qabti socoto oo dadka la xiraayo qof allaala qof 2003 dad ku dhawaada Soomaali iyo cid walba soo jeeto ajaarimaha xabsiga gelinayo iyo yiri iga baxa safaaradda banaanka taga oo isaga laftirkiisa tuun uu galay inuu magafiyaasha la shaqaysto dad badan oo la celiyay ay jiraan weeydan ka dhageysana ayadoo dhameystiran aniga filmishka dhameystiran laakiin inta ka hayo intaas meel laba gooro maanta sawirkiisa banaanka la soo dhigi doona Maxamed Daahir حسن جدا اللي ودي قارنا واي بكاس كل تبع أنا أرماس واحد بدن واقع مصر يا ليبيا يا السودان ها إفن ترياني واحد بدن كوجا
أما قابل تركي ويمد أسكنا ولا لحشة تما دولة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وهذا ما سنتين إلهي ورجلنا إن شاء الله دكتور سعود بن نضال ماشي على نقطة وعندي كنا ما عندنا فائدة السوشيال ميديا وليها واي لبدي سنة أن نيجر سوجنا دور من رسكو ديني لكن ما شاء الله سواء قد كده حمي هاي إنترنت هذا الحين حالة الناس وتقولي ودي يعني إلهي الناس وتقولي ما شاء مركي أمانة كنت وأن كان وين هاي إن شاء الله ودي مربنا كأكيرنا قبل داس أركي سنة يرتاح قبل الحياة macna xaaladaha ay ku jirto markaa kood kaliya iska oynaysa markaa habeenkii waxyaaba ay ku riyoonaysa ilaahay uu dhib yareeyo laakiin maaha hawl yar maahan wax meesha ka jiray iyo dhimashadii dadka si ahaayeen marka هنيد مري قبطة hadda saa meesha ويلكان أقوى مساعدة ويلكان عبد الجاب واي قبل الريح السواي ninkii inuu yimid garyaqaan ahaa intuu ku arkay markuu maqlay cabdigaabkii uu naga tagay markuu cabdigaabka ku maqlay inaa cabdigaab tahay maxay yahay cabdigaab sheegay hadda tahay ina calasow daa tahay qofku dhibka daw haysto wax qofka dhib haysta bis simple ayaa baraac iyo foostooyin baa lagaaga bartay moogta saas bay qabaan reerku ما waxa arkaysa wax laga hadli karaa social media yaalo wax tuba posta ma noqon karaanba meeqana magaca ninka waa nin reer magaala wuxuu geli karaa youtube-keeda soo arki karaa qisooyinkeeda soo fiiri karaa intuu u soo koro ina ayaa taa ninkaan dhihi karaa mugta cabdigaab was yaqaanaani dad yaqaana wey maya aan la kaftamay hadda dhaaro adag ku watee horta waa isleenahay anagoo nagayanahay laakiin garyaqaan laftirkiisa waa la hadalnay say qosada ugu yaraan hataa baashu aysan u noqon dadku maxay meel kale uga hadleen oo dadka labarka u gaarsiiyeen oo annaga isku laab lahayn say u dhihin fursaddan waxaan uga faa'iidaysanaa cid walba oo cidda saleebaan sheegata oo inta caanka inta facebook ka xamalata inta youtube ka xamalata inta tiktok ka xamalata waa la hadalnay fariinta waa gaarsiinay waa kala hadalnay message never qof furay ma jiro ama qaarkood inta furayna faraha ka qaadeen marka way haafto meesha heli karno iyo anaga saan warkan ku gudbisan karnaa anigu masalaban waa nin saacadaan ahay hadii qabiilnimo loo hadlaa laakiin garyaqaan intaad u sheegto nin cabdigaabaan ahay dhibkaasa gabadheeda ku dhac xaaskayga iyo cunugeeda la socday walaalkeed aad tiri ma kugu soo ya maya anigu ma dhaco cid ma sheegin qabiilna marka qof kasta aan la hadlayna ma dhihin ciddaas heeb lahay laakiin fariintan u sheegayna qisan noocaas ayaa jirta haddii dada kugu xiran hadday suurtagal tahay in dadkii na gaarsiiso ama live kula soo korno ama qisada inta naga dhageysato dad u sheegto whatsoever waa caawi karto way jiri intaas aan qornay marka I think I hope inuusan furin ninkan garyaqaan laakiin dadka rag kala jiro ama inay fureen iska dhaafeen ما تبرع ولا ما والله وحاول داي فيري أنا إمك مركو إيمت إدريس إيكين شيء ما ده يجين شغالات يوحي مقلن تصوماليات هين مركا أنا واحد يحتى قبيل لي هذول هذا ركعة واحد يبغى لكن وحبيب لوين قبيل كا واحد يكون دعوة إحنا حدين لوين تاسع قبيل في لوين عليك arrin qabiil ma wax qabiil qusay ma wax Soomaali oo dhan qusay oo ina weydiiyo xiriirka isaga iyo xayaat qurux ma inta soo tahriibin ka hor hadaayt eraygan ka helo wuxuu ahaa waxa tiri iyada darteed ayaan soo tahriibay dadku waxay soo tahriibaan ujeedooyin badan laakiin qofkii jacayl ugu horeeyay soo tahriibay horta maanta waa adiga taasna buugaaga rekorka way ku jiri doontaa aadaan ugu farxa inaan ku guuleysateen jacaylkii maxaa loo dhahay reexad kale romantic ma adaab soo tahriib marka daahiro annaga haddaa salebaan nahay kulley waana aragteen horta dadkuna dad ama waxa laga yaabaa inay nagu sensitive gareeyaan ama nagu jaaj gareeyaan waxyaabaha hadda iska yara dhacay horta cidaan waxba geysan ama dhib geysan wax geysan ma jirto annaga wax walba leena romantic aan nahay aqooyahan cid walba nagu jirto bilaadanka horta yaa hal dhinac noo fiirin ani gabadhan wallahi xaqiiqad ma ka hadlo ilaahay subhanahu wa ta'ala daalacay saad duran soo dukaday iyada darteed aan soo baxay oo meeshii igu darneed for entire life aan waligeey wadanka ma bixin mana igu jirin nin iska joogo magaalada iska shaqaysta ahaa xaaladii wixii markii gabadha arkay maalmahan ka dambe sii mareyso aan qaatay go'aanka ah maanta walaalka weyn aduusa jirin maanta adiga meesha aad joogtid take her risk go'aanka in ay darteed riskaas soo qaato meel soo maray
laba habeen laba maalin aan soo jeeday meel West Africa aan cunno ana luqad ahaan qofka islam weynay inoo weys أنا romantic waan nahay qofku romantic ah marka laga tago xirashanta boqol maasha Allah ما شاء الله ضل شنبقل xirashanta boqol ما شاء الله شنبقل صعنا لح بقول ان قارين ان شاء الله سنه دو waxay iska noqonaysaa 2 kun xogaa iska noqonaya marka xogaa kor u sii qaadayna inta la bilaabin sawir baan saaray weydiinaya walaalkay wallahi bal inay aragtay in kale inanta haye lagu silcinayay haye bal saar haye xamd weydii sawirka ibalaadi sawirka meel ka haystaa ma faa'iido wareegaysa حاجة أبغى يمكن walaalkay waxaan ku laanahay Liibiya soo galay lacagtii magafaa 14 kun oo doolarna looga qaatan laanahay muddo 7 sano sanadkii intii joogtay 2019 ilaa 20 joogtay gabadhu sanadku soo gal walaalo intaas 15 ilaa hadda ma garanayo hal wiil jiray laakiin wiilkaas waxay dadka dhaxayeen Oromo hal wiil jiray oo magaciisa xataa la garan waayay xabsiga gudaha ku jiri jiray wajigiisa balaari kana waa in adeerkay asagana waxa loo sheegay inuu waashay صور ظاهرة من مرينا يقول kana xiligu soo galay way isla socdeen kan laakiin inuu isla hadlay waxaa lagu soo qoray kii hadaay maqaaxibu meel halkaana ku leeyahay uu ku haystaa waa beentooda xasiida kan inuu waashana loo sheegay inuu isla hadlay markii la dilay la jir dilay inuu waashay waxba kala garanayna meesha xabsi ku jiraan loo sheegay bay wallahi kan ma magaciis ma garan kar sawirkan dad badan way jiraan oo waashay ani waxa arkay inta meesha jooga wiil la dhahay ilaa 8 sano meesha ku jiray oo magaciisa xataa garanaynin luqadan garanaynin qofka markii dirdilka ka bato luqada way ka dhuntaa qofku yahay wiilowaa sawir ma ka haysaa ka intuu leekaase maya dada way sheegeen dadka waxay dhaheen wiilka Oromo waay dhaheen markii damar safar lagu daray oo dad oo dhahayeen maalta inuu galay meelahaas u maleynaayo qalbi wada jaban dadka dhaawac wada waay waxaad nooga sheegaysaa qisada aad safaaradda kala kulantay qusulka aad kala kulantay Liibiya horta safaaradda waxa ka horeyso horta ani abtiyo xanuunkayga iyo dhibaatadeyda horta waliga qof ma u sheegin حتى هوي ما aragtay ma u sheegin maanta u maleeyaa in meeshan iga arkaysa ma iga daawo doonto ama loo sheegi doono حتى هوي ma u sheegin wallahi ani marka dhimaraba حتى oo dadaarmayay isdhahay waa dhimanaysa markaan yani ilaaha qof markuu dhimanayo laakiin markaas dhahdid last year taagan tahay maanta ugu dambayso wixii ka dambe waad go'aysaa waa dadaarmay gabdhaha saaxiibadeen waxa u sheegay inaysan hooyaday u sheegin arrinkayga laakiin wiilka yarka iyo hooyo isku xiran waayo marka aniga hooyo xataa markaan helnay oo alxamdulillah inta baafina helnay sida wax u dareemayo sida ahay midna uma sheegin in xaashi ka soo baxnay alxamdulillah xaaladdu u fiican tahay bisa u sheegay qof kalena weligay waa xanuunsanahay inta wax iga yihiin ma u sheegin laakiin maanta idinka waxaan kugu sheegay waxay tahay in dadkaas dhibaataas weyn ii geystay oo ma garanay caadootinimada ii qabeen waxay ahayd ma sheegi karaani hooyada laftirkeeda dhibaato badan ay soo martay qof laba caruur ay xabsi kaga jiraan oo mar walba lacag la soo weydiinayo sanadka bacdi bilooyinka bacdi mar walba lacag la soo weydiinayo lahay halkaas lagu filmaha ku xiran lacag soo bixi oo dareemi kartiin marka ana ila haddana qof hooyo hadaa maqlo yani si kala noqonaya emotional ida noqonaya hay noo sheeg marka dhibka xanuunka noo sheeg ka xanuunka xanuunkiga tiri qof hooyo uma sheegin wali safaaradda Soomaaliya xanuunkaaga halisma xanuunka hadda ku haysta sheegay xanuunka waa idin sheegay dhabarkayga inay laf ijaban tahay dhabarka lugahayga qalina xataa lagu sameeyay muddo 8 bilood dareen ma lahayn dhakhtarku wuxuu sameey jiray cirbadu ku muddo jiray maan dareemi jirin wallahi indhooyga xiraaya cirbadu ku mudaya wuxuu dhahay haye intee hadda cirbadu ku mudayo ma garanayo ma dareemi jirin bo
dhiigna waa lagu shubay 10 maal dhahay laba dhiig aad lagu kala shubay waan dardaarmay tiri inaan dhiman rabo hooyaday wiilkaas isku xira ayaan dhahay tiri daahiro nolol ma yarkii sugaynin cabdixakiin cumar gaabka ma cabdixakiinaa la dhahaa عبد الجاب وعبد الجاب مرقاب ما cabdigaab miyaa mas okay مش مرقاب كعشي يسجوا تركيا مرقاب والله قود كذا مرقاب والله قود هرينك أسوأ الله قود ninka safaaradda muxuu ku sameeyey soomaalidii ku dartaaba ninka safaaradda wuxuu nagu sameeyay aniga hay'adda haysay sana fadhi sorry ninka safaaradda xataa video nala ka duubay inuu youtube-ki meelahaas ku jiro oo maleynaa wuxuu nagu sameeyay aniga waxaa joogay masraato meel la dhaxaayo nin Libyaan ah mas'uul naga ahaa Libyaan ee Turkiga iska dhaleen markii ninka asaga mas'uul noo ka dhiga xalaha ilmahan hay asaga dhakhtarka nageyn jiray oo meel walba nageyn jiray aan markaas waxa la ibarayay sida loo socdo maadaama lugahay dhulka ay ku istaagaynin waxa mar walba dhigi jiray bar ilmahan sida ma arki meelaha loo marmaro oo dhakhtarka geey oo mar walba cuntadoodii waxaas ka warqab oo hay'adda noo dhiibtay hay'adda caruurta marka asaga ma qusula muxuu yahay asaga maya waxa hay'addu la shaqeeyaa haye marka ninkii asaga litirkiisa anigu wuxuu igu dhahay waa ku guursanayaa horta markii saas intuu isdhiin hay'adda markii UN liiga qoray wuxuu igu dhahay hay'addi waxay ku dhaxday Soomaaliya ku celinaa Soomaaliya ma rabtaa ani waa farxay dawladda Soomaaliya hada marka ninka waa Libyaan u fahmay ka sheekinaysa hay'addan heesab wadanka waxa ka shaqeynaya dadka wadanka degana hay'adaha ka shaqeeya mar walba wadanka hay'adaha wadankaas jooga haye marka waqtiga asaga marka anaga wuxuu naga ahaa mas'uul anaga naloo dhiibay labadeena haye oo markii isbitaalkii ay joogay hay'adda isbitaalka waxa nagu xirtay hay'adda oo caruurta oo UNICEF UNHCR nagu soo xirtay UNHCR tii waxay sameysay ninkan waxay dhahday ilmahan adi mas'uul ka noqo meeshan ku hay haye ninkii wuxuu nagu sameeyay meesha nagu hayn jiray adigu nasa socod bari jiray wiilka walaalkeena muddo ma hadleen uu aamusnaa oo ilaa hadda dadka lama hadlaba asaga haye marka asaga ma hadlaynin wuxuu bari jiray meel oo ilmaha wax lagu dhelsiyo geynaa ma la dheeli jirin meel iska fadhiisan jiray adiga ninkii magdam wuxuu nagu dhahay UNHCR waxay dhahday Soomaaliya li celinaa aan waxaan ku dhahay Soomaaliya waa rabaa markuu nagu cabsi gelinayo wuxuu dhahay maybe dadkan Soomaaliya ma rabaan أنا أقول ده سومالي هذا فرصة وهلا ربا بليز إن سومالي تجوان ربا مركز وحي أقول ده أوكي سومالي مرة أنا كوفو ده أنا سومالي وضد اللجوء هذه وحاسدني وأكو جورسنا واي أنا واقرع ما حسده واحد سومالي هذه سوي هذا نوحن كلا واحد قرع عنك لا نقطة جوري وحد دم بايلا صوي راضي موقف أوس عن كرمان تعرّي كرميه ولا الكيريسكو إلى السعودة ميلا حكى بلابن جرواي بس وحي ugu dhahay ana waxaan ku dhahay guri waxaas maraba anaa xanuunsan hada oo dhakhtar wax walba ana ku fududeynayo dhahay waxa waxa isku diyaar dhahay inaan la hadlo oo markaas waxa jirta hay'ad kale oo ayadana la dhahayo Norwich head oo dadka qaadaysay Liibi marka dadka zaid ku xanuunsan waxaas ka qaadaysay ugu dhahay dadka kala ku la hadla in Norway waxaas lagu qaada isku diyaar ma aragtaa ku dhawaayay waxaas ii sameey kartid wuxuu dhahay inaa ku guursada rabaa أنا مركز عوا صغير في عناية دولة تيبي مكا إيدا ما دولة تيبي قادناي أو لبا حبة دولة مكا إيدا ما توشاكاس إيدا هاي هذا الكمركو إيدا هاي وانا حي حانس ده محاسم يساوي حلا حر ضد أو جوجان ترابلس أنا مركز مسراتها جوجي تريبلي مركو حيود عشان بقى صادر ها ترابلس نودهان تريبلي ضد جوجا لا حر أصلا حيود عشان بقى صادر ورقتي أو سفارة سومالي كنت قلي هذا كوسو دمينا هاي هانيك ليبيان كاي دهاي شنتي بقول مركه وال soo diray Cabdiraxmaan hata soo diro dhahay la hadlay sheekaas jirtaan dhahay 500 soo dir oo soo diray shantii 100 markuu soo diray waxaan sameeyay waxna ma ii soo wada ninkii waraqada ku keenaa bariya ku keenaa bridma ku muxuu bilaabay markii dambe inuu guriga aan ku nooleyn anaka meesha waxa ku nooleyn anaga bis degneenbo meel askar degantoo dad qof madow dhan soo gali karnaa ku nooleyn laba nin madow noo keenay oo Suudaaniisa oo gurigan hortiisa iska fadhiyaanbo mar kasta وردي عمل إيه جبر ما مدرس كنا أو جادس هاد إذا ما عدو في عنا هاد وحيس مجر دركي وحسن ودق جرتي وإنه ما جرتي قرية حسن نجاه جايين جرتي
maamadii marka waxay u sheegeen nimankan way taqaanayeen luqadda carabiga waxay dhaheen ninkan oo ilmaha mas'uulka ah wuxuu dhahay ilmahan fiiri waxay banaanka uga baahan yihiin u soo qabta camal markii aad sii shakiibaani markii aad shaki qaadaa dhahay marka nimankan arkay gurigeen hor fadhiyo oo ku hortageen xasida okay waa ina yani arrinaa samaysaa wiilashan tribal jooga la hadlay xaaladii u sheegay hadda nimo xaalad noocaas ku jira waa cabsanooyaa maxaa sameeyaa wiila marka wuxuu ugu dhahay waxa ku soo dirayaa taxi ku soo diraa soo raacay ha ku dhahay bismillah soo raacana ku dhahay nimankan laakiin maxaa sameeynaa wuxuu dhahay nimanka xilli ee baxan ma jiraan oo ay guriga joogna ha ku dhahay mar kasta oo jiifano xitaa laba duhurnimo hadaa jiifano way tagaan nimanka ma joogaan ayaka xilligaas oo dhahay waxaa samaysaa xilliga ay maqan yihiin adiga uu taxi ku imaado soo raac taxiga salaadii subax camal 5 iyo bar camal taxiga imaaday salaadii subax xilliga ahayd oo taxiga noo imaaday wiilkii walaalkay kiciyay waxaan ku dhahay soo carro baxeena asaga xataa muus ogay meel u socono wax dhan uma sheegi jirin oo asaga muddo oo dhan ma hadli jirin wiilka wax ka soo la weydiiyay lacagtii oo markii dambe la weydiiyo ku naxsanaa oo aad ugu naxay yani tigitaanku xabsiga markaa uga soo tagay wuxuu u maleeyay in aan ka soo uga soo tagabo waxa uu fahmi waayay asaga marka aniga waxaan ku dhahay soo baxana oo soo raacay taxiga raacnay Tripoli tagnay oo nasoo dhaweey wiilkii wiilashii Soomaalida xagga joogeen soo dhaweeyeen meesha anagu joogna haddana waxa dhacday qab oo dadka la qabanayay oo kala carra dhacay aniga markuu waa baxnay wiilal kale ta waxay nagu sameeyay waxay nageeyeen safaaradda Soomaaliya safaaradda Soomaaliya mumkin laga xal halkan iska jooga safaaradii way dhulka kaliya oo Soomaaliya leeyahay Liibiya ku yaala waay oo ina halkan joogtiin meesha iska joognay IOMTA waxay noo keentay dhar dhan ma wadan xataa wax aawadan wax iskaga bedel ma jirto dhar inoo keeneen cuntayna siiyeen meesha iska joogdo xanuunsana joogay dad TB qabo dad walba way joogeen meesha safaaradana oo sidoo ku xareysan bay habeen hamelada kamid waxa dhacday ninkii qunsulka ahaa aniga marka koora joognaa gabdhaha 3 gabdho camal aheen oo maleynaa salaba camal ma badnayn gabdhaha wiilasha badnaayeen oo ilaa 50 camal gaarayeen hoos qaybta hoos ku jireen uu u tagay 12 habeen markay ay tahay uu dhahay safaaradda ka baxa safaaradda ka baxa markuu dhahay wiilashu way yaabeen wuxuu dhahay 30 daqiiqo haysteen inta kooda habeen ma la gaarin waa in safaaradda iskaga faaruujisaan banaanka u baxdaan wiilkii way imaadeen anoo kor jooga markii imaadeen xidhay walaalay saasal dhahoyaa idinku ma leedin dhahay ani waxa dhamay maba ogib hoos u soo degnay wiilashii wiil xataa wallahi waxa ku jiray xabadka ku soconaay oo lugihiisa gamciisa xataa ku socon karin oo suuliga marad ma aqawilka inuu dhintay inuu leeyahay Allah yaclam salku sidaan ugu soconaya suuliga saas ku tagi jiray hatta markii la rabo in la caawiyo meel la qabto ma lahayn oo yani jirka dhan waxaan xanuunaya ma ogoleen in la qaado saas suuliga wax meel buu ku aadi jiray marka xadahay maxaa sameynaa garaweynay wiilasha wiil kamid ah wiilasha dhan waa la celiyay Soomaaliya oo noqdeen wiilasha wiil kamid ah wuxuu sameeyay wuxuu dhahay wariyaal iyo waxa soo waceenaa u sheegina xaaladan hadda safaaradda ka baxno xabsiga galayna xabsigan in lagu dhinto maahan laga ma soo baxo xabsiga dawladdu way adag yihiinba waayo markaas waxay heleen nasiib wanaag waxay heleen wariyo oo la dhahayo Salman Jamal جمال سعيد جمال سعيد سلمان الله سبحانه جمال سعيد ايش الله كان ايش الله اوكي يونيفرسال وش غير وريهاasi heleen wariyihii wuxuu kula taliyay inay video soo duubaan ee safaaradda ay ka bixin dhul cadow bay joogaan aday ka baxaan dib dambe loo arki doono wuxuu dhahay video soo duuba iyo soo dira isla markii adiga 12 ahayd xilligaas daqiiqado isla markii video markaa duubnay aniga qof ugu soo horeey ahaa hatta videogaas oo hadlaayay waxaan dhahnay dad 3 sano 4 sano xabsi ku soo jiray dad xanuunsan dad nooc walba leenahay sidee ku dhici kartaa in la humaantay qunsulkii Soomaaliya halka uu dhow safaaradda ka baxa isla markaa videoga meel sare u gaaray waa la soo wacay qunsulkii markii la soo wacay asagana wuxuu dhahay xilligaas roob la meehna madaxweynaha dalka Soomaaliya ma garanayo saaran maaha adoo la soo wacay ninkii markii la soo wacay waxa lagu dhahay ilmaha hadal lagu dhahay ma garanayo hadalkii lagu dhahay laakiin wariyihii uu soo wacay wuxuu dhahay safaaradda kama bixi kartaan qofkii baxan asaas dilay ninkan kama saari kara safaaradda sidii baa waxa la sameeyay
ونينكي هرسولي نودي دبو سولي ما بعد كرتون برتس كجرا ويلشي يعني لما أنا مركي ما ضحك هذه بحكوا ده هرتا أنا ما كوي ما ضو بحكوا ده هذه عن غيرك أي واحد أنا هدا ويلش بحد هذا أنا بحوي ده أنت وها هذه نينكي سيدي حبين كده سولنا وجده وريه هذا نوع عنه ده صوت ضوب أسوي سولي نيدي ده يعني معقول ما أنا ده مضوب كرني قال كذا فديا ده قف سولي كرو كيالا قف كرسو هذه كرمالها ده برتي ناس كجرا دين كده meesha ugu jirnay subax markii la gaaray IUMT markii uu maaday wuxuu ku dhahay wiilashan meeshan qashin ay ku cabayaan waa saan sigaar ay ku cabay sigaar soo uray wax camal ku dhacday IUMT anina uu igu dacay wuxuu dhahay gabartaan ma biin ma waxay qabsadeen maxay ilmahan yarka maxaa baxsa u dhihi kartaa say macquul ku tahay bas markaas uu dhahay ani bax ma badhinbo أنا مركو هالله وحنا هي أنا هادو إدهين حتى ويلشوا بحد أدتك ما كلا ريبين أنا ما وجه رأي كل مع سيكاري كرنا أدي دتك أنا بحاول بحنا هذا أنا كتاج يقولنا قضاء وحدة أدي وأفدار تهاي إن أدا شكل لا كدم بيسفيدو إلا الضوء يحاسوا إذا أنا ما أنا كدم بين بحفيدو على الضوء واحد الأقل جيم كجرين باني لكن مركي ميكروفون كل هاي حلي والله بجرا حلبه meesha iska joognay adig ninkii sidii iska IUMT noo imaada IUMT waxay dhahday cid bixinaysa malahan safaaradiina ay joogtiin waxaan isku dayaa in wadankiin si nabad leh ku celiyo halkiina iska jooga ana sidii meesha ugu jirna ani waxa ay imaatay UNCR ta ila imaaday UNCR ta markay imaaday waxay dhahday in adiga Soomaali ma lagu celinaayo UNCR ta inay ku kaxaysay kugu tala gashay إن حالها أنا مركو وحي ما بحاي هل كان إسكت جوجايا سوماليا رباه طبعاً كسر UNCR تاي ما ذن عدانا يمد ليبيان هاين ويلا هالليل مركو وحي يقول هن كالي سفر الدياري أو الدرايو ووضن كلا قلي أهان لو سمينايو سفر كاس إن راعدين ولا بدين وكو قرنتين أنت أخذوا دهين نك عن إذن باب إنا يوم مسكوش يندي ده سفر جوجي بقيس ما عيسى إبراهيم الله لك وحلا وضر ما قرنا والله أي صعب مركا ضدك يا كوري صباح على وذا الوجودرية marka waxa ilaahay horta odaya jooga meeshaas hadda inuu dhintay inuu nool yahay ma aqaan magaciis inuu abshir ahaa inuu bashiir ahaa ma sheegi wax camal ah bashiir in la umalena odagaas wuxuu dhahay fariin noo soo dhiibto qof kasto meeshaas ka baxay safaaradda fariin uu dhiibanay wuxuu dhahay message-kayga waxa rabaa inaad dalka Soomaaliya gaarsiisiin ani 8 sano safaaradda Soomaaliya ka shaqeynooya wax mushaar la ima siiyo meesha waan ku dhibaataysanahay waxa rabaa inaad fartinteeda ii gaarsiisin dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya inay fartinteeda ii gaartaa rabaa